magacay waa Jaabir Maxamed Cabdullaahi Jaabir Nadaara kamid ah wariyaasha ka howlgala gobolka Gedo gaar ahaan degmada Balad Xaawo waxaana wakiil wareedka degmada Balad Xaawo u jooga Somali Cable. magacaygu waa Samsam wakiil wareedka Universal. magacaygu waa Sida Cali Yaasiin ku sugan degmada Balad Xaawo ka socdo Daawa FM. magacaygu waa Maymuun Cumar waxaan ka tirsanahay wariyaasha ka howlgala radio Gedo ee degmada Balad Xaawo. magacaygu waa Cabdikaafi Aadan Maxamed Cabdikaafi Dalmar ku magac dheer ka howlgalay warbaahinno fara badan raadiyaal iyo telefishinno ugu dambeeyay telefishinka caalamiga Puntland. waxaan ka mid ah wariyaasha ka tirsan magacaygu waa Cali Maxamed Deriye waxaana agaasimaha raadiyo Gedo. magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed waxaan ahaa warfideeniyadii gobolka gaar ahaan degmada Balad Xaawo. Maxamed Daahir Aadan waxaan ka mid ahay suxufiyiinta ka howlgasha gobolka Gedo. Ka faa'iiday si loo sameeyo sheekooyinka saameynta leh ee isbeddelka cimilada haddii aan leedahay qeeca hawada lagu sii daayo haddii aan leedahay warbixinada saameynta markaas dad dhibaataysan haddii sawiraan ahaan lahaayeen waxyaabo fara badan inta lagu soo koobi karin ayaanu ka faa'iideynay ayay noo faa'iideysay SGS. waxyaabihii aan halkan ka faa'iideysanay iyo sidii cimiladii iyo ma aragtay ay ula jaanqaadi lahaayeen sidoo kale waxaan ka faa'iidnay in fatahaadaha iyo saameyntooda aan ayaguna bulshadii ka wacyigelin. waxaan aad uga faa'iideysanay isbeddelka cimilada waan rajaynaynaa tababaro ka badan inay ururka SGS ay noo fidiyaan waanu ku faraxsannahay annagoo dhan 15 suxufi oo ku sugan degmada Balad Xaawo ayay tababarka intuu socdo waxaan ka baranay waxa kamid ah isbeddelka cimilada sida warfideenku oo soo warami karo sidoo kale waxaan ka bartay sida uu saameynta ay leedahay isbeddelka cimilada. faa'iidnay waxyaabihii halkaan lagu baray waxyaabaha la baraya ama tababarku ku saabsanaana waxay ahayd isbeddelka cimilada taasoo ah maaragtay dhibaato ba'an oo maanta adduunka dhan la daala dhacayo isla markaana sidii caqabadaas iyada ah looga bixi lahaa maanta loo harjadayo waxyaabo badan baan run ahaantii ku baranay aniga shakhsiyan Cabdikaafi aan waxyaabaha ay soo jiitay waxa kamid ahaa habka wariyaha ama suxufigu u gudbiyo sheekada iyo sidoo kale habka suxufigu dadka wax u tabinayo u kala dooranayo isla markaana ay waxyaabaha ku dooranayo. tababarka waxaa ka faa'iideystay oo markaasi anigoo ah 15 saxafi oo ku kala socday warbaahinada ku yaal degmada Balad Xaawo tababarku si wanaagsan ayuu noogu bilowday alxamdulilah casharo wanaagsan ayaanu ka baranay wax badan ayaan ka faa'iidnay run ahaantii oo ku saabsan isbeddelka cimilada waan filayaa saaxiibada inay noo ziyaadin doonaan tababarada noocan oo kale ah waan uga mahadcelinaynaa cid kasta sida macallimiinta ka faa'iidnay in badanna caawiyay warfideenka ama wariyaha qayb weyn ka qaatay markasta waxaan kula talinayaa SGS in markasta ay noo imaadaan tababarada hadda ayna siiyaan kuwa ka sii badan ayna siiyaan farxad ay ii tahay. SGS waqtiga aad geliseen magaalada xuduudda ugu fog Soomaaliya adinkoo laga yaabo qaarkiin inaad ku dhalateen xuduudda dhinaceeda kale Itoobiya waxaan in leenahay soo dhawaada mar kastana waan inii baahanahay. waxaan SGS baaq ugu dirayaa inay tababarada ay degmada ay keentay inay noo soo badiyaan kuwani kuwa ka badan oo qaybaha kala duwan ay saxaafaddu ay leedahay. waxaan halkaan baaq ugu jeedinayaa SGS oo aan ka codsanayaa tababarka inaysan halkaan ku keenin oo marar badan ay noo soo laabtaan si aan halkaan uga faa'iidno. SGS marka waxyaabaha hadda aan doonayno in aan u dirno waxa weeye in dadka mihnadan saxaafadda ku shaqeeyo loo joogteeyo tababarada run ahaantii hadda tababarada la qaadanayo waa tababaro ku saabsan maaragtay sida wariyuhu wuxuu gudbinaya ama theory waxaan jeclaan lahayn insha Allah tacaala saxaafadda sidoo kale dhanka practicalka ama farsamooyinka gacanta ha noqoto tafaftirka maaragtay muuqaalada ama editingkooda ha noqoto sida muuqaalada loo duubo sawiraanta waxyaabahaas oo dhan waxaan jeclaan lahayn inay tababaradooda ku soo daraan. marka tababarada noocan oo kale noo sii wadiyo ayaan sii jeclaan lahayn waxaana tababarkan qaadanayay dalada suxufiyiinta SGS.